dagaalamaynaa inaan bedelno dhaqanka xumaan oo dalka jiray mas'uuliyadda iyo culayska waddanku annaga nagu dhacaysa caddayn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socdo Soomaaliya way ka duwan tahay wax ay qof iyo laba qof iyo saddex qof xukumi karaan maanta laakiin kuwa ka soo baxa ay la cilmiyeen ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa looma qaadan karo dawladaha dimuqraadiga iyo dawladaha waaweyn ee caalamka ee qaabka ku dhisan yihiin dhul wada booga oo wada cadawa oo wada danqanaya laguma maamuli karayo waxaan arki jiray iyo rabitaankaaga waa idinku dhaliilayaa weli inaanay muuqan shaqo dhab ah oo iga dhaadhicisa inaad aqbasheen inaad qabsatiin hoggaanka dalkiina waxa ama wax la isku raaci karo ama lagu hagaajin karo ama wax lagu socodsiin karo waa dastuurka oo la ilaaliyo dhowristiisa iyo dhamaystirkiisa weli waxaad u dhaqmaysaan inaad xaaladda mustaqbalka dhexdhexaad ka tihiin nooca ay ku socotaay way ka sii daraysaa sidii hore u ahayd shabaabna maanta waxay heli karaan fursad ay awood ku yeeshaan oo maanta waddanka ay meelo kale ku gaadhaan haddii aad u dhaqmayso inaad mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo carruurtaada dhexdhexaad ka tahay macnaheedu waxay tahay weli baadan fahmin wixii aan ka hadalnay sanad ka hor mas'uuliyadda iyo culayska waddanku annaga nagu dhacaysa caddayn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socdo maanta deeqaha caalamku bixiyaa la bixiyaa dhaqaalaha jirta midowga Yurub iyo UN iyo cid waliba way bixisaa dawladaha bixiyo mid kaasha boorsooyin ku qaada haddii ay sidaas tahay marka waxaa muhiim ah inaan isla garanno waxyaabo yaryar oo kala duwan kow haddii aan rabno inaan wax ka bedelno dalka xaaladda uu ku sugan yahay waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno xaaladda ay dadku ku sugan yihiin dawladdu ma waxay xukuntaa marka xafiisyada dawladda xamar yaalla iyo xildhibaanada xamar jooga iyo golaha wasiirada maanta baarlamaanka Jubbaland 5 bilood la soo dhaafay mushahar muuna arag idinku intaad ahaan lahaydeen milkiilayaashii qaranka maalinba waxaa la idin keenaa shay laga hadlo shaygaasaad wax ku darsataan waayo marka cidda laga qaadaya waayo cidda wax la weydiinaya waayo dawladnimada cidda lagu matalaya waayo dawladnimadu waxay tahay waxaanaad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dawladnimadu waxay tahay su'aalaha aad adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dawladdan iyo mujtamaca wada nacamlaha xagee laga helaya ma gacan ku samaysba haddii la yidhaha mujtamacan waxaan ka helaynaa waxaan soo samaysanaynaa dad sacbiyo oo yidhaha nebiga idinkoo la fadhiyaan idin arkay sax maaha meeshani kuma jiro nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annagaa go'aansana go'aankaan ummadda Soomaaliyeed u gaarayna kuwa isteediyada jooga iyo ma ajnabi ma Jarmalba xagee ka yimaadeen dawladda Soomaaliyeed ee dadka mas'uulka ka ama ku jiraan miya mise haddii xaafi Cabdiweli Gaas iyo waari ay mas'uul ka yihiin waa dad kale in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhageysto haddaan hadallada qaarkood si kuleyl oo laga raali ahaado